الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد waxaynu isku baraarujinaynaa ama aynu khudbadeena ku soo qaadanay at-tawbatu ila Allah inaynu ilaahay u toobadkeena subhanahu wa ta'ala iyo toobada mawaadiic ama arrimo ku saabsan in laga hadlaa waa muhiim. baahi badan baa inaga muuqanaysa baladiya baadiyada, sidaa daraadeed ilaahay baynu u baahannahay subhanahu wa ta'ala. markaynu ilaahay u baahannahay ee aynu wax ka doonayno waxa ka horeeya wuxuu inaga doonay inaynu furino aynu xaqiijino, iyadoo wuxuu inaga doonay isagu aanu u baahnayn rabbi subhanahu wa ta'ala, sidaynu ka arki doono daliilada soo socda. tawbadu haddii aynu xaqiijin weyno tawbada shardigu inagu xidhayna aynaan fulinin way adkaanaysaa ilaahay waxa laga doonaya in laga helo subhanahu wa ta'ala. culimadu waxay yiraahdaan farqi baa u dhaxeeya tawbada iyo istighfaarka. hunaka farqun bayna at-tawbati wal istighfar. waxa si xeel dheer bay yiraahdeen tawbada waayo tawbadu waxay la xidhiidhaa maadiga, xaadirka, mustaqbalka, wixii tagaya, waxa joogaya, waxa soo socdaba. sida shuruuda aynu ku arki doono qofku wuxuu ka toobad keenayaa wixii hore ee dhacay, wuxuu ka dhaxbaxayaa dambigu ku jiro, wuxuu ka go'aan qaadanayaa dambigu samayn lahaa. istighfaarkuna waa mimma mada, wuxuu adoonku ilaahay weydiisanayaa inuu ka salabeeyo, ka safeeyo dambigii hore tagay. laakiin labadaba waa la isku darayaa, waa wada socdaan. oo waxa weeye qofku inuu ilaahayna u laabto kana codsado wixii ka dhacay inuu ka dhaafo. tawbada sidaynu aayadaha aynu soo maraynay, aayada suuratu tahriim aynu ku maqlaynay, ilaahay wuxuu ku xidhay subhanahu wa ta'ala shardi aad u muhiim, sifa iyo qayd adagna uu raaciy. yaa ayyuhalladheena aamanu tuubu ila Allahi tawbatan nasuha. tawbad nasuha, tawbad wanaagsan oo saafi ah. tawbatu nasuh culimada aad bay u sharxeen. حسن البصري وكله وحا وليه توبه قيد كان الهي وكخده هدينو شرحنا وحا ويه ان يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على الا يعود فيه. وحي هراك دحاي waa inuu ka xumaada oo ka burugooda go'aan sadaanay inaanu ku noqon. sheekh la yiraahdo kalabi waxa uu leeyahay yastaghfir bil lisan wa yandama bil qalb wa yumsika bil yad. وأنه عرب استغفار تكبضيا قلبنا كمرغودا حبناها كهكيا حمان. ظنون وكلا وحول أن تضيق عليك الأرض بما رحبت حتى لا يكون لك قرار ثم تضيق عليك نفسك كما أخبر الله تعالى في كتابه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وحويان سيدو الهيك قوة رمي في سورة التوبة أصحابتي توبت كنتي waanu dhulku ku qaadi waaya oo cidhiidhi kugu noqdaa oo xumaantaad samaysay diiqadeedu ay aad kugu badataa. markaas la oranayaa at-tawbatu nasuh. macnaha tawbatu nasuh hadaynu inta ku dhaafno shuruuda tawbadu waxay leedahay qodobo laga hadlo. qodobadeeda waxa kamid ah xukunkeeda. adoonku tawbadu sunna u tahay, waajib ay ku tahay. imaam an-Nawawi baa ka waramaya tawbada xukunkeeda iyo shuruudaha qofka looga baahan yahay. oo tawbada shuruud bay leedahay. xukunkeeda waxa uu leeyahay culimadu waxay yiraahdeen at-tawbatu waajibatun min kulli dhanb. qofku markastuu dambi galo faral bay ku tahay, maaha ikhtiyaar. faral bay ku tahay inuu ilaahay uga soo noqdo subhanahu wa ta'ala. marka haddii gefku ka dhaxeeyo adoonka iyo ilaahay saddex shardi bay leedahay oo ka koobaad uu yahay qofku horta waa inuu gefkan ku jiro faraha ka qaado. tusaale ahaan hadduu xaq bani aadam hayo ama dambi ilaahay uu ka galay faraha kula jiro horta ha ka baxo. tan labaad waxa weeye inuu ka murugoodo waxa uu sameeyay iyo inuu go'aansado inaanu ku noqon
xaq bani aadam hadday tahayna qofka dadka waa inuu madaalimtoodii u celiyaa marka roobka waynu doonaynaa laakiin waxa adag dadku waxay kala hayeen inay isu celiyaan kii xoolaha ummadda hayay inuu u celiyo kii cid gaara wax ka hayayna inuu u celiyo kii qabiilo wax ka hayayna inuu u celiyo taasi way adag tahay intay taasi adag tahayna roobku wuu adag yahay markaan been la isu sheegayn dadkii oo ilaahayow daahaya oo istighfaartii wada ayaa waxa ay ku jiraan xaaraantii iyo dulmigii iyo xadgudubkii iyo xoolihii ummadda haystaan rasuulkuna wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam fa anna yustajabu lidhalik qofkii baahnaa ee gacmaha kor u taagaya ee basiirada iyo basaasta iyo bulbusho ay ka muuqatay waxa uu leeyahay ilaahayow buu ku celcelinaya wuxuu cunaya iyo wuxuu cabaya iyo dharku xidhanya iyo wixii lagu koriyay intuba waa xaaraan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam fa anna yustajabu lidhalik bal adaa lagu weydiiyay sidee kaa loo aqbalayaa buu rasuulku yidhi sallallahu alayhi wasallam marka dhibka inna haystaa waxa weeyaan xaaraantii iyo dulmigiina waynu macaasanaynaa dhinacanna waynu ka damqanaynaa waa doqontaa hayso halka laga haysta aan garanayn musiibada u weyne u baahan runtii inaynu si guud iyo si gaarba looga wada foqo laga wada hadlo oo horta la diraaseeya waa mushkiladaa wey markaa shardigaasi baa laysku waafaqsan yahay ah qofku xaqa bani aadamka inuu celiyo mid caam iyo mid khaasaba taasina towbadii bay ka mid tahay haddii kale wax towbad la yidhaahdaa ma jire waa towbadii bisadu ay jiirka ka toobad keeni jirtoo kale araggu uu ka dhexeeyey shardiga shanaadna waxa weeye wakhtigii towbadda in la joogo oo ilaahay baa wuxuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala si caam iyo si khaasaba wakhtiyada qaarkood oo aan towbadda la aqbalin inuu jiro qofkana aan laga aqbalayn ummaddana aan laga aqbalayn mid waynu soo sheegno waa marka dee dulmigii ay ka bixi waayaan midda kalena waxa weeyaan wakhtiga adduunyada la rogayo والنبي وحده عليه الصلاة والسلام الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها توبة محر ما يسيلا قرحض أي كسو بحضه هل كي أي كنعضي على الدنيا مركز بدش يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ووقت قاسي آيات المامس waxa kaloo nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka gaar ahaantiisa marka la eego xaaladan tawbadu la aqbalay inay jirto waxa uu inna allaha yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yugharqi qofka hadaan xawla al-maridka naftu soo gaarin waa la aqbalay tawbadiisa laakiin markuu sii dhimanayo nin weyn wadkii waa yaqaana uu islaado waa socotaa halka guriga ay maraysa lama aqbalay tawbadiisa tawbadu walaalayaal waxa weey adoonko ilaahay ka xishood dhab ah oo xumaantu sameynaya ay damaqdo oo xaq si fiican u arka imaamkii weynaa ee la oran jiray zaahidkii la oran jiray Ibrahim ibn Adham oo ahaa ragii cibaadada aad u macaansan jiray waxa uu lahaa waqtiyada kamida nimanka madaxda kursiga isku haysta haday garan lahaayeen cibaadada dhadhankiiyo macaankan ku hayno way nagu qabsan lahaayeen waa san loo nuurino waanay dhadhamininba kursiga u macaan annagana cibaadada noo macaan buu ninbaa waxa uu weydiiyey sidee baan ilaahay ugu toobad keenaa markaasaa wuxuu yidhi calayka bikhamsi khisaal 5 arrimood horta eeg 5 arrimood ayaad eegaysa marka inuu ilaahay ka xishoodo ayuu indhihiisa u jeedinayaa ta horeysa weeyaan haddaad doonto inaad gafiya macsiya ku dhacdo ama aad sii wado horta ilaahay arsaaqadiisa iska daabi ha cunin وسيده ودعيسا ابو نينكي با يري سوك الهي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين سوك الهي سيداي الهي با اسغا ددك ارزاق فهل يجدر بك ان تاكل رزقه وتعصيه ودا سيده اديga sax kugu tahay u dhinaad arsaaqadiisana cunaysa aad kuna gacan saarayso meelad xishoonay qofka aad diidaysa ee haddana aad dafiraysa bini aadamka kaaba yeelo marka ilaahayna sideed arsaaqadiisa ugu noosheed ugu naaxaysa haddana ugu gacan saydhaysa aad u caasiyaysa ee aad ugu xadgudbaysa marka waxaan ku sheegi lahaa abuu marka doonto inaad ilaahay caasido dhulkan mid aan ahayn u dhoof waxa gan u dhoofaa abuu soo keenay inna allaha inna rabba lillahi yurithuha man yasha soo ka ilaahay dhulka ilaahay baale cidoo doonana uu dhaxalsiiyaa haddaba miyay kugu wanaagsan tahay dhulkii ilaahay iyo gogoshu fidiyay inaad ku caasido martiba tahay
ciddii ku sooriyeysay martida aad oo ahayd inaad ku ciyaarto ku edab darooto miyay sax tahay mayagu marka doonto inaad ilaahay caasido waxaad tagtaa buuri fabxath can makaanin amiinin laa yaraaka allahu fiih meelaan ilaahay kugu arkaynin ood ilaahay kaga libdhaysa raadso oo xaggaan uga libdhi karaa buu sawka ilaahay yidhi yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur isha wax qarsanaysa ilaahay wuu og yahay laabtu waxay qarinaysana wuu og yahay ma ilaaha laabtu waxay qarinaysa ogsoon baan wax ka qarin karaa haddaba adiga miyay kugu wanaagsan tahay buuhi an tacsiya allaha wa huwa yaraak wa anta calaa yaqiinin an allaha yaraak inuu ilaahay ku arkayo oo isha kugu hayo adigoo ogsoon sidaad ilaahay caasiyaysaa buuhi miyaanad xishoonayn markaad doonaysa buuhi inaad ilaahay caasido malaga u yar sheegoo waxaad tidhaahdaa ii yara kaadii nafta ha igu soo degdegin oo sidaan odhan karaa buuhi sawka yidhi ilaahay fa idaa jaa ajaluhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun marka dadka wakhtigoodu yimaado wax yarna lama qadimo wax yarna lama dibdhigo haddaba sidaad ilaahay u caasiyaysaa buuhi adigoo aan garanayn goor nafta lagaa qaadayo marka shanaad haddii aad doonaysa inaad ilaahay caasidu naartaba ku geeyo malaa'igta naarta iska diid buuhi oo ha u hogaansami ee ku gacan saydh iyagana halkaa markuu marayo qodobkaa shanaad ninkii waa ooyey dabeetana wuxuu badiyey astaqfirullah 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 wa atuub ilayh caasha uu la fahmaya laakiin xaqiiqadu muu dadka usii sharxaya culimmadu waxay leeyihiin calaamadaha towbadda waxa ka mid a muujinaya qofka in towbadii laga aqbalay ama ummadda an yumsika lisaanahu min alfuduuli waalghiibati waalkadib carabkii waa inuu isbedelaa oo xumaantii laga joojiyaa allaa yaraa liaxadin fii qalbihi xasadan walaa cadaawa nacaybsiyaha iyo colaaduna dadku ay isku hayaana waa inuu meesha ka baxaa an yufaariqa asxaaba suuq qofku ama ummaddu dadkii xumaa ay wadatayna waa inay bedeshaa oo qofku saaxiibadiisii xumaa waa inuu dooriyaa الرابع أن يكون مستعدا للموت نادما مستغفرا لما سلف من ذنوبه قفك وين غيرida xusuustaa diyaar noqdaa alaabtana si xidhxidha kana xumaada wixii hore ee uu sameeyay astaamaha hadii laga helo qofka ama ummadda waxa jira in tawbadii aan saxday hadii kale ma asxib ileen culimadu tawbadda ilaahay kama faa'iido subhanahu wa ta'ala tawbadda adoonka haba ku farxeen waxba kama faa'iido waayo nooba baahna inaga ka faa'iideyna tawbadda waxyaabaha in ka faa'iideynana tobanka shay baa kamid ah marka u horeeya waa sababun limahabbati illaahi subhanahu ilaahay baa inuu jeclaada adoonkana inuu ilaahay jeclaada waa wuxuu u ordayada adduunyada waa wuxuu u amal falay inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin aayada ilaahay wuxuu ku rabbi wuxuu jecel yahay kuwa ilaahay u toobad keena ee nadiifiyana jirkooda iyo dharkooda iyo deegaankooda macnaha waxa weeyaan muuqaalkooda iyo macnawiyaadkooda labadaba way nadiifiyaan wasaqu ka durugsan yahay qofka alla yaqaanka ilaahay rumaysan waxaynu ka faa'iideynaa ilaahay inuu inaga saaro liiska madow wa yukhrijuna min alqaa'imati as-sawdaa waman lam yatub fa ulaa'ika humudh dhalimun alla wuxuu dadka aan ilaahay u toobad keenin ظالمينتي كجرا كظالمينتي أدونك وحو كغبخي كرا توبدا وطاعا لأمر الله أدونك أدو إلهي وتوبتك أنا إلهي بو أقبلي إلهي بو صور نغضي إلهي كل كي هرأي وديدي أيا وأصول لابتو صور نغضي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون معنى أمر كاسو أدونك قاتيو إلهي كل هدو صور نغضينا وحي الله أبو ري وقرت توبدا وحي نكفى إذا سبب لمحو الذنوب dambiyada inagu culus reeraheena iyo dawladaheena iyo maalkeena midna aanu inaga dhaafaynin ilaahay baa dhaafa wuxuu inaga dhaafayaa inaynu ilaahay u toobadkeena subhanahu wa ta'ala nabiguna isagoo inoo bushaareynaya wuxuu ataa'ibu min adhanbi kaman la dhanba la qofku haduu ilaahay u toobadkeena wuxuu ka dhigan yahay qof aan dambi lahayn oo kale sababu lil falahi fi dunya wal aakhirah faa'iidooyinkeeda waxa kamid ah waxaynu doonaynaa guul iyo horumar adduunyada iyo aakhirada labadaba waxa lagu helaa tawbada فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين قفك إلهي همايا إلهي وتوبتك أنا عمل ونكسن سمايا وحا أدويها ربح إنه كم النقضتك قوليستي الليباني فإذا عجيبك وحا كمل أن تبدل السيئات إلى حسنات
haddii aad ilaahay u soo noqoto waxa la wixii dambi haad samaysay buu kuugu doorinayaa wanaagyaan waa fadli ilaahay gafafkiiga qura kaa dhaafi maaya laakiin intii aad gaf gashay in la eg oo wanaagu halkoodii ku dhigaya waa fadliga ilaahay ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما dadkii toobadka aan xumaantay sameeyeen ilaahay waxaan ugu bedelayaa buur wanaagyaan waxaynu ka faa'iideynaa hadaynu ilaahay u noqono waa sababun fi rizqi wal quwwa awoodi ya arsaaqadaynu ordayno toobadaasaynu ku helaynaa nabi nuux alayhi salaam ummadiisii buu waaniyay xumaanta inay ka soo noqdaan buu faray markaasaa wuxuu yidhi faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara waxaan ku yidhi ilaahay markaan ummaddii waaninayay ilaahay u toobadkeena uu idinka dhaafa yursili samaa'a calaykum midraara xagga sarena roob fara badan buu ka soo dejin doonaa wayumdidkum biamwaalin wa baniin waxaanu idinku xoojin doonaa adduun fara badan iyo inamo dadku inamaday u waashaanin badan oo ilaahay bay inama u baryaan aayadu awlaad may sheegina inamay sheegtay marka ilaahay adduunna wuu idin siin doonaa iyo arsaaqad ballaaran inamana wuu idin siin doonaa marka towbadii baa lagu leeyahay inamay ku siinaysa arsaaqadiina way ku kordhinaysa wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara waxa ilaahay u idin siin doonaa beero iyo biyo beero fara badan iyo biyo isku qoofalan waxaynu ilaahay ka doonaynaba habeen iyo maalinba inaynu toobada badino toobada shuruuda leh ayaa lagu heli karayaa waxaynu ka faa'iideynaa tajcalu al-'abda yahrib min al-'adab adoonku markuu ilaahay u toobad keeno wuxuu ka baxayaa min xayaati al-mustawxishiin ila xayaati al-mustanisiin dadka didsan ee strastiga iyo qulubku ku dhacay noloshoodu ka baxaya dadka qalbiga ka degan ee qalbiga ka nool noloshoodu u baxaya fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana hayatada iyo nolosha macaan toobadaas lagu helaya tudahiru qalbataay tawbadu qalbiga qofka ayay nadiifisaa kolkay daacad iyo niyad ka tahay qalbigay nadiifisaa inuu qalbigu ku nadiif noqdo oo ka wasakhoobina waa nolosha qiimaha badan dadku waxay ka cawdaan deegaanka wasakhooba jirka wasakhooba waxa laga cawdaa oo dhaqaatiirtu ay ka dayriyaan meel ka wasakhowda ama ummadda ka xumaata qulubta ugu daran sidaadaradeed baa ilaahay uu kala barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun dadka qalbigooda waxa daboolay dambigay sameeyeen marka dambiga haduu ilaahay ka daadiyo qalbiga ku nadiifiyo wax waliba way ku hagaagayaan idan inta soo faa'iida inaga ku qabna toobada ilaahay waxba kama helayo subhanahu wa ta'ala ku farxo oo adoonkiisa iyo darradii ka baxaya u soo noqday weeyo ku farxaya laakiin saasay ugu baahanahay marka mowduuca aynu maanta ka hadalay waxa weeye mushkilada in haysata dawadeeda لا بد من تشخيص الداء قبل الدواء ورتوا إن داء عذر كالأرك دواءنا الراعية مركا دينتين حنيف كاها ونكسنا قيمها بضني داء عذر كإنها ينوى شاكت دواء ذي نواقع ضدك نفسي أي عذر كوقبحا وين يستاويا اللهم أرنا الحق حقا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أمطر علينا الغيث اللهم أمطر علينا الغيث وأنبت لنا الزرع وأدرنا لنا الضرع يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سواك وبطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يا نفس توبي
فإن الموت قد حانا، فاعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرى.